waxaa jira xilliyo ay habboon tahay in qosolkaada aad qarsato ama aadan soo muujin oo aad isku celiso. Waa laba xilli: markuu qofku uu soo waajahan yahay iyo markuu qofku dhaafo. Maxaa yeelay haddii qofkan uu kuu soo waajahan yahay, laga yaabo in aad adiga sheeko wadato ama laba qof aad sheeko wadateen, qofka markaa qososhaan haddii qofkaas haddii wax ka khaldan yihiin waa u sii jirantaa, oo haddii sidii inuu dhulka jaban yahay ama gacan uu leeyahay ama uu furan oo kale, wuxuu aaminayaa in isagu qoslaayo ama aad ku jejeesaysaan oo aad qoslaysaan. haddii qofkaas aysan wax ka khaldaneen, wuxuu aaminaa in wejigiisa ay wax ku yeelaan ama qaabkiisa ay wax ka khaldan yihiin ama aad qosolkaas u dalneedihiin. marka waxaa habboon inaadan markaas xilligaas aadan qoslin, qosolkaada aad ceshato. sidoo kale markuu qof ku dhaafo oo qof idinka gudbane, lama qoslo ayadana, oo qofkaas wuxuu aaminayaa inaad xaminaysiin ama aad wax ka sheegaysiin ama duudkiisa ay wax ku yaalaan. xilligaasna qosolkaada waa la qarsan.